jaamacadda adnaadan ayaa maanta magaalada Hargeysa xaflad ballaaran ugu qabatay ardayda sanadkani ka qalin jebinaysa jaamacaddaasi ee dhammaystay culuumta kala duwan ay bixiso jaamacadda adnaadan. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Somaliland, guddida tacliinta sare, mas'uuliyiin, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii halkaasi waxaa ka hadlay aasaasaha iyo guddoomiyaha jaamacadda adnaadan, Marwa Adnaadan Ismaaciil, iyo guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Mustafa Xasan Daahir. waxaana yidhaahdeen in maanta jaamacadda adnaadan ay ka qalin jabiyeen 16 arday oo ka qalin jabiyay kulliyadda dhakhaatiirta. waan hambalyaynayaa waa curadkii jaamacadda kulliyadda dhakhaatiirta. waxaa maanta iyaguna halkan ka qalin jabinaya 7 qof oo masterka ka soo qaatay wada shaqayn aan wada shaqaynay jaamacadda Coventry iyo TET oo qaatay masterkoodii. waxaa jaamacadda adnaadan ay sanadkan ina soo dhaafay aanu heshiisyo la saxeexanay jaamacadda Addis Ababa ee Ethiopia, jaamacadda St. Paul ee Ethiopia iyo jaamacadda Madaniyaat ee Turkiga. waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqayaa qiimayntii dhoweyd ee 2022 in qiimayntiina lagu sameeyey inay jaamacadda adnaadan ay ku soo baxday darajadii koowaad. Somaliland way idiin baahantay. Somaliland ayaa wax la idiin baray. waxa ugu weyn ee Soomaaliya loo qaban karayaana waa waxbarasho tayo leh. waxaan ilaahay la hortegaynaa itaalkayaga inaan waxbarasho tayo leh oo kaga duwantiin meelo badan aanu idin siinay. idina waxaa la idinka doonayaa inaad ummadda ugu adeegtaan sidii ballanteenu ahayd oo aydan ka fikirin waxyaabaha dhow, lacagta, sumcadda, magaca ka fikiri maysaan, laakiin mustaqbalka idinka fikiraysaan, aakhiraydu ka fikiraysaan, magaca raaga iyo wejigeedu ka fikiraysaan. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadan, ardaydii hore u dhammaystay jaamacadda iyo kuwa sanadkani baxaya, waxaana ay ka markhaati kaceen tayada waxbarashada jaamacadda adnaadan. qalin jabintu waa mas'uuliyad, jaamicinimaduna waa darajo kastaana waxay leedahay mas'uuliyad ku saaran. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu mas'uuliyadda qaadeen uu idin fududeeyo oo idinku garab galo. waxbarashadii saaska u ahayd jaamacaddaadii waxay geysisay inaan ka mid noqdo ardayda maanta sanadkan ka qalin jabisay Harvard University. saaska aqooneed iyo cilmiga ku gaaray jaamacaddaadii. dhammaantood ardaydan maanta hortiina fadhiya waa arday ka soo dhex baxday shaandhadii iyo miiddii loo sameeyey lana soo xusay. waxaanan maanta ka markhaati nahay dhammaan intayda hor fadhidaa inay wada yihiin dad ku takhasusay, wax badanna ka og, wax badanna ka garanaya wixii ay soo barteen. waa tahay ummadda Somaliland maanta ay mahadisay 200 oo arday oo ku takhasusay qaybaha kala duwan ee caafimaadka inay cududaas u soo biirtay. iyadana ummadda Somaliland ayaa taana riyaaq weyn runtii ay u tahay. horta anigu arday baan ahay, idinkana ila mid baan ahay. ardaynimada iyo waxbarashadu wax istaaga maaha. cilmiga sidiisana lagama dhergay waa lagu dharsaa. wax laga dhergay cilmigu maaha. alif markaad barato ba inaad jaahil ka tahay baad ogaanaysaa. waxaan idiin sheegayaa imtixaankii dadweynaha idiin hadhay, kii adnaa soo dhaafteen, kii dadweynaha idiin hadhay. gunaanadkii halkaasi waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka beeraha, waxaana yidhaahdeen adnaadan ardayda ay soo saarta waxaa lagu yaqaanaa akhlaaq, waxaa lagu yaqaanaa ethics, waxaa lagu yaqaanaa karti. waxaan rajaynaynaa inaad intaa ku soo kordhisaan bahda caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland. dadkaad isaga dhowdihiin qabiilkiinu waxa weeyaan adna waa adna meel kastoo joogtaan waa inaad ku bahdiinu noqotaan ood ku abtirsataan adnaanu ka soo baxnay, isaga dhowaataan dadka kale, isaga naxariis badnaataan. gruubkiina soo baxay iyo gruubadii ka horeeyay iyo kuwa ka dambeyn doonaba
isxidhiidhisaan. ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda sanadkani dhammaystay jaamacadda adna aadan, halka ardayda kaalmaha sare gashana la siiyey abaalmarino iyo shahaadooyin. Guulad Cunaabi, MM TV.